بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومالin khamiisa ilaahay khayrkeeda hayna siiyo. alxaqiiqa shucuubta ama ummadaha ku nool adduunyada kolka ay murmaan laba dowladood, dowladooda iyo dowlad kale, waxay la saftaan dowladooda hadduu mucaarad yahay iyo hadduu opposition yahay iyo haddii uu wax kale yahay. ninkii Soomaaliyeed ee oppositionka ahaa ee rabay kursigii ugu sarreeyay inuu fadhiisto, wuxuu la saftay ninkii aynu badda isku haysanay. badda ma farmaashaa leh waa maya, badda ma cali daacuun baa leh waa maya, badda qof ma leh, badda Soomaali baa leh. alxaqiiqa qodobka intaasaan ku dhaafaya. xasan sheekh maxamuud iyo xiirane iyo baarlamaankii wakhtigaa jiray waa recording ayaa beddelkeeyey maxkamadda ICJ-da. wax badan baan xalqadahayga ku sheegayoo madaxdaa waan ku ammaanay. maanta inuu xasan sheekh oo ka mid a murashaxiinta isa soo sharaxi doona inay soo saaraan qoraalkii cinwaankiisu ahaa murashaxiinta, oo ay yidhaahdaan waa campaign, waa mid subxaan allah lagamana filayn. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. dalkani waa iib, badda horaa loo iibsaday waa iib, cirku waa iib, dhulku waa iib sida ii muuqata. haddaan oppositionku iyo siyaasigu iyo taajirku iyo dowladdu iyo shacabku haddii aanay markay dowlad murmaan aanay dowladdooda raacin, waa iib, waa beec. khiyaanatiga aan ku hadalno, waddaniyadii baa luntay. kol hadday waddaniyaddu lunto wax kasta waa iib. aad baan uga xumaaday warqadda. ma hayn warqad aqoon-yahan, ma hayn warqad muwaadin, ma hayn warqad nin dalka ay lehay jecla ka hayso, ma ahayn nin doonaya dalka inuu xukumo. warqad uu qoro uu yidhaahdo waa campaign. maxaa campaigna? miyaan maxkamaddu aan dacwadii ool? war miyaanay ool? war maxkamadda dacwadi ma taallaa? xasan sheekh ma geeyey? waa maxay campaignku? allah yarxamhum.
ilaahay ha u naxariisto qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. xukuumadda waxaan ka codsanayaa inay Kismaayo ka dhigto wax la yidhaahdo dispute area. ma haysano, waa laynagu haystaa. inta laynagu haysto baynu haddana raalli ka nahay oo siyaasiyiintu raalli ka yihiin oo siyaasiyiintu Axmed Madoobe u heelinayaan. mar hadday taasiba jirto waa dispute area, doorasha kamama dhici karto, dowladduna dee ma tegi karto. ila waa ninkaa wixii uu madaxtooyada ku saxeexay kolkuu ka baxay xamar ee Nairobi tegey ee dafiray. tag baynu u haynaa maalin kasta inay soo noqnoqoto ha la wada hadlo. waa dispute area, waa in laga dhigaa. qodobkaana xukuumaddan ka codsanaya. alxaqiiqa dalka iyo kursiga dalkaa weyn waanu joognaa. waxba kuma hayno, waxba kuma qabno. waa dalkayagii, dal shisheeyuu noo dhaamaa. haddaan sidaa loo fekerin haad baa wada cuni doona, haad. waxayna Soomaaliya noqon doontaa meel la qaybsado, building block, haddaynaan u midoobin oo u soo wada jeesan. farmaajo waa qof, prime ministerku waa qof, kii hore u joogay waa qof, kan dambe waa qof, kan xiga waa qof. qof baynu waxaynu siinay dalkii u nabcaanay, markaasaynu ajnebi u cararay, markaasaynu ajnebi warkiisii maqlaynaa. war iska dhaafo waxaa oo dalka ha la wada ilaashado. alxaqiiqa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.